xaaska macmalka ama gabarlamoodka robot romantiga ee bilyaneerka Elon Musk oo malaayiin raga ay ka daba dhaceen si ay u naageystaan haweeneydan gacan ku samayska oo leh hubqaadka qararka dumarka waa raaliyo u roon ragga iimaan la'aantooda gabdhuhu ay kaafin waayeen ma masayrto ma hadal badna hawsheedana waa ay ka adag tahay waxa loo roorayaa in lala raaxaysto gabarlamoodkan caaga ka samaysan taasoo caado ay ku dhacayso 3 maalmood oo kaliya bil walba Allahumma najayna alla gaalo maxay god ku dhaceen oo been isugu sheekeeyeen robotkan quruxdeeda ragga reer galbeedku ay ka daba dhaceen waa qalbi xabxab maskaxdeeda ay ka buuxaan gabayo iyo hadallo macmacaan waxay ninkii la kulmo ku beeraysaa jacayl dhiigga iyo dhuuxa raaca waxay kaloo awood u leedahay inay qabato shaqooyinka guriga sida nadaafadda cunto karinta koolkoolinta iyo soo jiidashada ragga waana sababta ay uga qaalisan tahay robodyadii horey loo farsameeyay fadlan like saar muuqaalkan haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl mahadsanid maalinba maalinta ka dambaysa aqoonta aadanaha ee tiknoolajiyadda korontada ku dhaqaaqaysa iyo cilmiga saynisku waa ay sii kordhaysaa laakiin waxa barbar socda caqli xumada ay diin la'aantu keenayso sida mawduuca aan maanta ka hadlayno ee xaaska macmalka oo ah mid reer galbeedku ay aad ugu faraxsan yihiin balse muslimiintu ay aad uga yaqyaqsadaan ama ka xishoodaan maxaa yeelay ragga reer galbeedku waxay doonayaan inay ka xaajo gutaan gabarlamoodkan biraha ka samaysan iyagoo weliba heli kara gabdho alle quruxsami u dhameeyay sheekadan biyadhaceedu waxay ku soo ururaysaa bilyaneerka Elon Musk oo loo aqoonsan yahay ninka labaad ee dunida ugu hantida badan wuxuu had iyo jeer sheegaa inuu ka baqayo in robotku maalin uu ka sarreyn doono bini'aadamka kana awood badnaan doono kaasoo khatar gelin kara naftooda kol uu ka hadlayay madasha dhaqaalaha ee Qatar wuxuu sheegay in nooc ka mid ah robotka oo ay farsamaysay shirkadiisa Tesla la soo bandhigi doono maalinka sirdoonka artificialka ee 30 Sebtembar 2023 robotyada ay ikhtiraacday shirkadda maalqabeenkan ee Tesla waxa ugu caansan ka lagu magacaabo Optimus waana kan dhererkiisu gaarayo 180 sentimitir waana mid aad u culays iyo xajmi badan wuxuuna markii qaadi karaa culays gaaraya 70 kilogram isagoo saacad walba jari kara xawaare dhan 8 kilomitir robotka Optimus ayaa loo qaabeeyay inuu qabto hawlaha khatarta ah wuxuuna meesha ka saarayaa caajiska warshaduhu ay kala kulmaan shaqaalahooda sida uu sheegay Elon Musk wuxuu leeyahay saaxiibtinimo buuxda sida xayawaanka rabaayada mar kaliya mareegaha internetka waxa ku faafay sawirro la yaab leh oo maalqabeenka caanka ah Elon Musk uu ku shuminayo ama ku dhunkanayo robotyo haween loo ekeysiiyay ayaa dadka qaarkood waxay u fisheen inay tahay xaaska labaad ee bilyaneerka ka soo jeeda South Africa sawirrada oo u muuqda kuwa dhaba ayaa lagu arkayay Elon Musk oo xodxodanaya oo weliba laabta gelinaya xaaskan macmalka ee kombiyuutarka ka samaysan hadalhayn maalmo badan socotay dabadeed waxa soo baxay xaqiiqada sawiradan waxaana la soo warinayaa in lagu sameeyay kombiyuutar oo uusan ahayn sawir caadi ah oo la qaaday maamulaha shirkad dhisidda robotyada ka shaqeysa oo lagu magacaabo David Marfin waxaana sida la sheegay uu ku duqeynayay riyada Elon Musk ee ku aadan in dunida kombiyuutarka iyo aadanuhu ay wada shaqeeyaan wuxuuna boostigan si kaftana ugu yiri waxaan filayaa Musk inuu mid ka guursan doono robotyadan taasoo lagu magacaabo Katnila waxayna ku shaqeysaa solar oo uma baahna koronto sidoo kale waxa loo sameeyay dareemayaal ay ku dareemayso hadba saygeedu farxad ama murugo midka uu dareemayo David Marfin ayaana sheegay in robotka noocan oo kale ah ee leh astaamaha iyo dabeecadaha haweenka uu yahay midkii ugu horeeyay ee loo dhameystiray dhammaan wixii dumarka looga baahnaa wuxuuna ku andacooday inaysan jirin haweeney la mid ah maadaama dunida korkeeda aysan ku noolayn haweeney meel kasta ka dhameystiran balse xaqiiqada xaaska macmalka waa propaganda lagu samaynayo shirkadda Tesla oo suuqyada ku soo fasaxday robotyada la yiraahdo Optimus kuwaasoo la sheegay inay sida aadanaha u dhaqmi doonaan ma ku nooshahay wadamada qurbaha sida Canada USA iyo guud ahaan Yurub shirkadda caalamiga ee Forever Living oo ay ka faa'iideysteen kumanaan Soomaali ah waxay idin haysaa fursad ganacsi manager Cusmaan oo caawiyay Soomaali badan oo ku nool wadamada qurbaha wuxuu diyaar u yahay inuu idinka faa'iideeyo ma laha shuruudo badan mana laha khidmad isdiiwaangelina ganacsiga alaabta oo ah badeeco aad u tayo sareysa waxaad ku bilaabi doontaa dhaqaale aad u yar adigoo ka heli doona macaash badan haddaba ma kaa go'an tahay mase doonaysaa isbeddel dhaba fadlan la xiriir WhatsApp number +1 41 65 79 853 ma rabtay inaad lacag dirto iyada oo aan wax waqti ah ka lumin ma dhibsanaysa inaad saf gasho si aadan uga daahin
hawlihii aad qabsan lahayd. ma jeclayd in aad ka daahin xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo mar walba. Ma kugu adkayd in gaarigaaga mar kastuu dhex taagnaado wadooyinka ciriiriga iyo jaamka jira awgii. hadday jawaabtaadu haa tahay hoo xalka fudud ee lacag dirista goor kasta iyo goob kasta oo aad ku sugan tahay. ku soo dhawow adeega mobileremit.com oo ay kuu keentay xawaalada caalamiga ah ee Safari. adeega mobileremit.com waa adeeg kuu sahlaya in lacagtaadu si sahal ah ku gaarto goobtii aad la rabtay. waa adeeg mobile to mobile ah oo aad ka diri karto mobilkaaga gacanta kuna diri karto mid kale. ogsoonow adeega mobileremit.com wax ka yar daqiiqad ayaad ku diri kartaa lacagta ama lagugu soo diri karaa. adeega mobileremit.com ee xawaalada caalamiga ee Safari waxa uu meesha ka saarayaa inaad banaanka aado si aad lacag u soo xawisho. adeegsiga adeega mobileremit.com waxa uu ka saacidayaa inaad si fiican u gudato howlahaaga ama aad ku raaxaysato waqtigaaga. xawaalada Safari Money Transfer waa xawaaladii xawaaladaha waxayna ku xawilaysaa xaddi kasta